wax walba oo maaragtay cusub ama wax walba oo ay arkaanna way ka falceliyaan waxayna uga falceliyaan qaab negative iyo qaab positive si togan iyo si toban labadaba marka aniga aragtideeda ahaan ma qabo in wax khaldan ama wax maaragtay lala yaabo ama wax maaragtay bulshada ku keeni kara dhexdeeda wax la yaabo ama wax ceeb inay sameeyay wax walba dhacayna dee qadarullah bay ahayd marka arrinta social media aad ku qabsatay oo la yaab kale baa waxay tahay wiil caruus oo maaragtay ooyay habeenka xalfadiisa arooskiisa marka qolaba sidii uga falcelisay marka aniga ahaan shakhsiyadeedu ma arko wax xun ama wax khaldan waa dareen ka turjumaya qof walba jacaylka uu qabo qofka uu guursanayo ama qofka uu nolosha kula midoobiyo marka waxaan is dhihi karaa ma aha waxaan u hinta iska keenay ama wax doqonnimo iga keentay laakiin dareen farxadeed oo muujinaya meesha ay gaarsiisan tahay jacaylka ay dadku igu qabaan ehelkayga familigayga asxaabteeda marka arkay sida quruxda badan oo sharafta leh oo ay igu nidaamiyeen iguna soo qabanqaabiyeen xalfadeyda ilaahay waa mahad iskale alxamdulilah aad baan uga mahadcelinayaa cid walba xalfadda ka qaadatay waa mahadsan tahay waa su-aal isweydiin mudan way tahay qof walba oo arkay dareenkeennii arooska iyo xalfaddeena arooskana isweydiinayo walaalow muddo 5 sano baan isdhihi karaa baan gabadha wada soconay inkastoo mararka qaar aan maaragtay 2 meelood ku kala noolayn laakiin waqtiga lagu badnaabo waa kala maqnayn haddana dareenka iyo farxadda waxa iga keenayo ilminta iga keenay waxaan dhihi karaa waxay tahay anigoo dalka dib ugu soo laabtay ehelkayga asxaabtayda meelo kala duwan jooga arooskayga soo qayb galay anigii oo helay qofkii aan nolosha kula midoobi lahaa wallahi dee qofna maaragtay waxa weeye farxad guud kama bixin karo wax waqti badan soo socday ama arrin waqti dheer soo jiitamaysay marka waxaas dhihi karaa dee waa qof walba oo wax jecel ama qof walba oo damiir loo jecel ku jiro wuu dareemi karaa xiriirkiisa marka jacaylkan wallahi muddo badan aad u badan baa maaragtay gabadhan wada soconay xiriir badan naga dhexeeyay waxaana dhihi karaa soo ku soo bilowday anigu dee si kadisa uu ahaa aniga waxa weeye qofkii aan maaragtay hadda aan nolosha kula midoobay gabadhan nolosha kula midoobay si kadisa aan isku baranay laakiin wax walba ilaahay oo mahad iskale suurtageliyey way jiraan waxaan dhihi kara waxay tahay intaan gabadhan wada soconay hal mar oo nolosheena ka mid ah ismaana cayin ismaana aflagaadeen wax maana nama dhex marin wax khaladana nama dhex marin waxaan wanaag ahayn muddada 5 sano wallahi qof walba wuxuu dareemi lahaa arrinta meesha taagan haday qabsan lahayd baan dareemayaa anigu isma leeyahay ragga Soomaaliyeed baa maaragtay jacayl in naxariis dheertahay laakiin anigu horena waa u sheegay macnaha dareenka iyo maaragtay farxadda iga keenay ilinta iyo dadka ehelkayga labadeeda waalid gabadha waalidkeeda waalidkiisa ay ugu hagar baxeen asxaabteeda labada dhinacba dhinaceeda haday tahay dhinacayga marka sida la aligeed baan u qiirooday laakiin isma lihi ragga kale waxa weeye wax naxariis iyo jacayl badan aa dheerta ma garad wallahi horta reer mudugu waa run dad adag waayihiin aniga hadda laftirkaygu adaygi iyo reer mudugnimadii inay iga suulin baan mareynaya laakiin dareenka jacaylku ma ahan qofku wuxuu xukumo oo hintuna ma ahan qofku si wax walba uu sameeyo iyo dib walba naftiisa u geysto wax ka imaanaya laakiin waa wax ku yimaada dareenka iyo xaaladda markaa taagan marka waxaan is dhihi karaa dareenkaaga iyo maaragtay jacaylkaaguba reer mudugnimo wax ku salaysan ma ahane laakiin waa wax maaragtay ilaahay xag rabbi ka keenay inaan maaragtay dee arrintaasi dhacdo wallahi fariintaa u dariya waxay tahay inay dhalinyaradu dumarka u dubcaan diinteena islaamku waxay soo galeen horta qofka islaamka ma sameeyo wax walba diinta islaamka qofka u banaynaysan inuu sameeyaan ku boorin lahaa iyo wixii dhaqanka Soomaalidu uu u banaynay laakiin diinta ahmiyadda koobaad leh maadaama dad islaam nahay marka waxaan dhihi dhalinyarada ceebna ma ahan wax ma aragtay khaldanna ma ahan dad baa waxa weeye xafladooda arooska si dhaqan xun oo anshax xumo ah uga falceliya una arka sharaf laakiin waxaan dhihi anigu maadaama hadda ay arrinta aniga social media iga qabsatay ay tahay nin caruusa wuxuu ooyay marwadiisii waxaan dhihi inaad dumarku u dabacdaan wixii khibrada iyo maaragtay iyo hadday tahay oo hintii iyo hawsheeda ma garanaysaa ciddii rabta inaad maaragtay ila wadaagta ama iga waraysato
عندي لأنه ده وهن إسكما كنا لكن درين كأي كان ممكن دمر كنا لو دبل ما كلا تلنا رجع أنا يرد أيو يقول كوه مني